qisadaas waxay tahay waxay ku dhacday nin askari ah ninkaas wuxuu ahaa nin dembi baadho ah ninka dembi baadhaha waxa ku dhacay jacaylka wuxuu u qaadahayaa dembiilihii lagu soo oogay dembiga ee loo keenay isaga ee baadhitaanka uu ku samaynahayay ayuu u qaaday jacayl waxaan ahaa nin askari ah oo dembi baadho ah waxaa la ii keenay laba gabdhood labada gabdhood ee la ii keenay waxaa lagu soo oogay dembigaasoo ah rag fara badan oo kooxa ayaa waxay deganaayeen gurigaas ay deganaayeen ayaa gabdhihii laga soo qabtay labadii gabdhood ee laga soo qabtay waxaa la yidhi naagahan nimankan bay la nool yihiin oo halkan ay degan yihiin si qaldanna iyaga iyo ragga waa u wada dhaqmaan waana u wada joogaan gabadhii waxaa la dhahayay samiira labadii gabdhood ee isla socday samiira iyo suweyda la kala dhahayay gabdhihii ayaan muxuu ahaaye waraystay oo muxuu ahaaye waxoodii baadhay gabdhihii gabadh ka mid ah gabdhuhu waxay xidhnaayeen naqaab bay xidhnaayeen gabadhii naqaabka ayadoo xidhan baa lay saaqay gabadhu waa samiira samiira ma arka wejigeeda waxaan arkaa indhaheeda iyo sunniyaheeda oo basa balse gabadhii markii aan bilaabay dembigeedii dembi baadhistii aan ku bilaabay een rabay inaan wax ka qorqoro aniga dhanba waa lay saaqay gabadha labadeedii indhood iyo sunniyaheeda basa baan arkaa waa samiire qofkan jacaylku qaadayna waa ninkii dembi baadhaha ahaa ee loo keenay gabdhaha ninkii gabdhihii markii wuu warwaraystay adigu waxyaaluhu ka qorqoray waxyaalihii markuu ka qorqoray gabdhihii way iska tageen gabdhihii marka ay tageen asagana shaqadiisii baa usoo dhammaatay waqtigii uu rawixi jiray baa la gaadhay waqtigii la rawixi la jiray markii la gaadhay wiilkii uu rawaxay gurigoodii buu aaday wiilku wuxuu ahaa wiil firfircoon oo wuxuu la joogay hooyadii iyo walaashii agoon weeyo aabihii wuu dhintay hooyadii iyo aabihii hooyadii iyo walaashii buu la joogaa oo guri la degan yahay mas-uuliyadoodana uu hayaa wiilku wuxuu ahaa wiil firfircoon hooyadii la ciyaara walaashii la ciyaara jikada hadday ku jirta wax la qabta bashaasha buu ahaa laga bilaabo maalintii loo keenay labada gabdhood ee dembiga lagu soo oogay wiilkii xaaladiisii waa isbedeshay si zaa'ida bayna isu bedeshay wiilkii maalintii gabdhaha loo keenay maalintii habeenkii uu rawaxay habeenkii indha musa isku qabanin wuxuu yidhi indha iskuma qabanin 12 habeenkii waan soo jeeday waa baasna baan ku hayay waagii markuu ii bariyay aniga oo gabadhii wejigeedii hor imanaya labadeedii indhood iyo labadii suuniyood in hor imanayaan gabadha hadday iga hor timaado ma garanayo wejigeeda ma arko labadii indhood iyo suuniyihii unbaa muxuu ahaa dhex gala gabadhii halkii baan jacayl oogu qaaday halkii marka aan jacayl oogu qaaday habeenkii ma seexanin habeenkii markii aana seexanin waa samaadasaan ugu hayay waagii markii uu bariyey baan gabadhii wixii laga qorqorayo maalintii hore ee la ii keena ama ka qorqoray aniga oo raba gabadhii inaan arko oo raba aragtideeda iyo codkeeda ayaan u yeedhay anigii oo haddana cabsanayo oo le shaqadaada arbal kuu qoonsataa ayaan u yeedhay gabadhii maya waan wacay maalintii hore lambarka ka qoray waan wacay waxaan ku yidhi waxaan rabaa inaan su-aalo ku weydiiyo waxyaabaa la rabaa in lagaa qorqoro imo xafiiskii imo gabadhii baa timaaday xafiiskii marka ay timaaday anigu ujeedadaydu ma aha inaan gabadhii wax ka qorqoro cid i amarto u yeedhi tirina ma jirto cid ilo ogna ma jirto laakiin waxaan u yeedhay ina aan arko oo bes ah codkeedana maqlo oo bes aan ugu yeedhay gabadhii adigu waan u yeedhay way ii timaaday waxaan jirin baan ka qorqoray markii aan ka qorqoray gabadhii waa iska diro iska tag baan ku yidhi intii aan rabay aniguna waan helay way tagtay gabadhii markii ay tagtay shaqadaydiiba ii dhammaatay waan rawaxay markii aan rawaxay haddana habeenkii dambe waa habeenkii labaade indha iskuma qabanin indhamaana isku qabanin firfircoonidii malihii nashaadkii malihii qosolkii malihii walaashaydii aan la ciyaarayay iyo hooyadeydii aan la ciyaarayay walaashay agoon ba ahayd hooyadayna wadaadkeedii wuu dhintay marka mas-uuliyadoodan hayay aad baan ooga farxin jiray waxyaabo oo ay ku farxaan baan u geyn jiray labadii maalmood maalintii hore ee gabadha la ii keenay maalintii labaad ee ii timaaday
labadii maalmoodna nashaadkii iyo qosolkii iyo farxaddii melihi. maalin habeenkii sidii baan ku seexday. habeenkii labaad miyaa seexdaa ma seexdo, waanu soo jeedaa, gabadhiin baa soo hormaraysa, codkeediin baa igu soo dhacaya, labadeeda indhood iyo sunniyihiin baa hormarmaraya. waa habeenkii labaad sidii buu iigu dhammaaday. habeenkii labaad markuu sidii iigu dhammaaday, subaxdii saddexaad ayaan shaqadii aaday. subaxdii saddexaad markii aan shaqadii aaday anigoo cagajiidahaya, gabadhii in laygu arko oo na diidan oo le arbay shaqadaadii kuu qoonsataa. maalintii shaqadii baan sidii ku imaaday. shaqadii markaan sidii ku imaaday, gabadhii baa haddana loo yeedhay oo raggii iyo waaweynaa madaxda ahayd baa u yeedhay. waxyaalaha haddana laga qorqoray. marka waa loo yeedhahay, aniga waan ku diirsanayaa sababtoo codkeedaan rabaa, aragtideedana waan rabaa. marka haddaan arko waan yara degayaa, laakiin markii aan aragtideeda waayo ayaan si noqonahayaa. gabadhii maalin saddexaadii nimankii wax ka qorqoreen. maalin saddexaadii markii laga qorqoray haddana way tagtay. markii ay tagtay baa shaqadii adugu way noo dhammaatay. aniguna xilligaygii markii la gaadhay waan rawaxay. markii aan rawaxay xaafadii tegay, gabadha walaasha ee gabadha isku fiicneen bay ahayd, aad isu jecelahay, aad ii jeclayd, anna aadaan u jecelahay. walaashay Samiira waxay samaysay, waxay tidhi yaasiro walaalow ma qumanid, maxaa si kaa ah, nashaadkii ma lihid, qosolkii ma lihid, farxaddii ma lihid. xitaa walaashii xilliyada qaarkood markuu yimaado iyadoo jikada ku jirta wuu ka saacidi jiray waxyaalaha ay jikada markaa ka hayso, wuu ka saacidi jiray, wuu u geli jiray. ma lahayn wixiiba. saddexdii beri way ka weyday gabadhii. waxa ay samaysay way warsatay, waxay tiri walaal se wuxuu jiraan. markii horeta wuu iska adkeeyey, markii dambena wuxuu yidhi walaasha inay garab ku siisaaba laga yaabaa, wixii xoga sii. garabkuu la orday, fadhigay fadhiisteen. wuxuu yidhi walaalay gabadh baan jeclaaday, nin dembi baadha ahaan hay, 2 gabdhood baa la ii keenay, dembi lagu soo oogay. labadii gabdhood gabadh ka mida unbaaba saa ii dhex qaadayba. miyir iyo maantoona ma hayo. gabadhii reerkooda ma aqaan, ehelkooda ma aqaan, gurigooda ma aqaano, ilaa taleefonkeedaan hayaa. gabadhaasaan walaalay jeclaaday. hooyadan si aan ugu sheegana ma garanayo. waxaan rabaa inaad garab iga siiso. gabadhii halkaa wiil bay walaal la ahayd. aabaheed wuxuu dhintay iyada iyo isaga markuu dhalay yuu dhintay. gabadhii way faraxday, aad bay u faraxday. waxay tiri weligay waxaan tamanaynahayay inaad walaalkayo gurigaas aan ku wada nool lahay, reer aad adigu leedahay keento, carruurtaada oo ciyaaraysa aan muxuu ahaay halkaa ku wada noolaado. wallaahi bilaahi waan rajaynayay. wixii aan ku riyoonahayay ayaan saadaasheeda arkaa. alxamdulilah, garab waan kaa siin. hooyadeenna waan u wada sheegaynaa insha allah. xilligii guurkana waad gaadhay. hooyadeenna waxba kuma dhahayso, isdeji walaalkay, farxaddaadii iyo reereyntaadii soo celi, waxba ma waayaysid. walaashii saasay u dejisay. waayahay bay tiri. wuxuu yidhi hooyaden seen ugu sheegnaa, waxaan rabaa hooyaden inaan u sheegno, dariiqa aan ugu sheegana ma garanayo, seen ugu sheegnaa. waxay tiri, wuxuu yidhi marka walaashay waxaan rabaa Samiiroy inaad dhahdo hooyoy, gabadhan wuxuu yidhi haddaan u sheego ma dhihi karo gabadh muxuu ahaaye dembi lagu soo ooday oo stationka la keenaan jeclaaday ani hooyaden ma dhihi karo. haddii aan dhaho wayba ila yaabaysaaba. marka waxaan rabaa inaad muxuu ahaaye aad dhahdo hooyey gabadha waan garanayaa, isku muxuu ahaaye jaamacad baan nahay, anaa aqaana, waa saaxiibtay, saa ku dheh. yaasir baa dhahaya yaasminaysaa hooyadeen ku dheh. wuxuu yidhi walaalkayow hooyadeen beenuma sheegi karo. aniga hooyadeen saaxiibaday way og tahay, way u tirsan yihiin, gurigay iigu yimaadaan, way og tahay saaxiibaday. marka hooyadeen beenuma sheegi karo, laakiin si cad oo waadixan ugu sheegaynaa. gabadhana dee ehel iyo qaraabo unbay leedahay, iyada unbaa laga raadraacayo, iyada unbaa inoo sheegayso. maalintii dambe gabadhii wuxuu yidhi meel baan ku ballamiyey. maalintii afraad baan meel ku bariyey. meeshii baan isugu nimaadnay. gabadhu waa iyada iyo hooyadeed weeye. aabaheed wuxuu ahaan jiray askari, wuu dhintay. wuxuu marka hooyadeed iyo iyada gabadhu ma shaqayso, hooyadeedna ma shaqayso. waxa ay cunaan lacagtii aabaheed uu qaadan jiray ee mushahaarka ah, laakiin aabaheed wuu dhintay. iyada iyo hooyadeed baa guri ku wada nool. marka aabaheed wuu dhintay, gabadhu waa agoon. meel baan ugu yeedhay, waan isbaranay, ehelkeeda, qaraabadeeda, wixii muxuu ahaaye meeshay ka dhalatay, qabiilkeeda, wixii baan weydiiyey.
sidii baan isu baranay waan soo kala tagnay aniga markaan gabadha aan hadiyad u geeyo waxay ii keenaysaa hadiyadda aan u geeyey hadiyad ka qaalisan bay iyaduna ii siinaysaa ma xumaynin wuu isoo dhaweysay si fiican bay ii qaabishay waan isfahnay adigu hooyaan maalintii dambe waan kala tagnay gabadhii waan is aragnay anigoo faraxsan oo murtaaxa baan gabadhii kala tagnay gurigii baan imaaday waxay tiri wuxuu yidhi markaa samiiraay hooyadan waa maalintii aan u sheegi lahayn gabadha waayahay bay tiri waa la wada fadhiistay maamadii baa loo yeedhay wuxuu yidhi hooyoy gabadh baan jecelahay gabadhaad jeceshahay yay tahay gabadhaad jecelahay gabadh waxay ahayd dembi lagu soo oogay gabadhaana dembi shaqo kumayna lahayn markii aan waraystayna waxay tiri gabadh nimanka la degan baan saaxiib ahayn iyadaana u iman jiray laakiin anigu guriga ma deganin raggana lamaana deganayn laakiin gabadh saaxiibta ragga la deganayd gabadhaasaana u nimaadna aniga gabadho kale wax dembi ana ma lihin gabadhu saasay ahayd buu yidhi hooyoy waana jecelahay waxaana rabaa inaad reerkooda iila tagto adaa meeshii hooyo iyo aababa iigu jire gabadhii duqdii waxay tiri yay tahay gabadhu qabiilkeeda ma taqaan familkeeda ma taqaan xaggeed ku baratay wuxuu yidhi halkaasaan ku bartay oo aniga oo dembi baadho ayaaba la iigu keenay intii kiis lagu soo ogay gabadha la ii keenay saasaan u baadhay halkaasaan isku baranay jacayl xad dhaaf ahana u qaaday adigu waayahay bay tiri maalintii dambe wuu wacay wuxuu yidhi hooyaday iyo aabbahay guurka waxaa ka horeeya barasho hooyaday iyo aabbaha hooyaday iyo walaashay baa raba inay kusoo bartaan way ku imaanayaan maalintaasaa iyo saasa ka warhay gabadhii maamadii iyo gabadheedii way israaceen xaafadii bay tageen gabadhii si farxad leh oo muxuu ahay xushmad leh oo maasha allah bay usoo dhaweysay maamadii baa markii hore wada fadhiistay iyo gabadhii kadib gabadhii oo kaleeto gabadhii oo saa u taxaashaysa oo muxuu ahaay qaxwe iyo wada muxuu ahaay timir iyo macmacaankoodii wada aayar u keentay fadhigii baa la wada fadhiistay halkii baa lays bartay halkii markii la isku bartay waa lasoo kala tegay markii lasoo kala tegay wiilku markaa lama socdo maamadii iyo gabadhii way waxa reerka soo baranahay bas way soo tageen maamadii iyo gabadhii way soo tageen wiilkii bay u yimaadeen wiilkii maxaa la yidhi hooyow gabadha qaabka aad noogu sheegtay saddex jibbaarkeed bay ka qurux badan tahay miyaad aragtay quruxdeeda wuxuu waa xawrolaciintii la sheegi jiray xawrolaciintii la sheegi jiray baan maanta soo arag weligana nasiibkii aan rajaynaynay iyo riyadii aan ku riyoonaynay waata afkay nooga soo gashay fadhigaagayna kuugu timid hooyo waana ducadayda bas markii wiilkii wuu baraqay maasha allah isagoo inan ma aragay sunniyo indha unbuu arkay iyo qof shuka qabe yuu arkay weli kafool wejigeeda muusa arag gabadhu indha shareerun bay qabtaa bas maalintii dambe uu sugi waayey maalin markii laga joogo asagoo maalin saddexaad yuu ballamiyey wuxuu yidhi xaafadaan imanayaa waxaan rabaa inaan familka soo barto waxaan rabaa adna kafool inaan isku aragno insha allah hayabay tiri way soo dhaweysay gabadhu waxba ma diido waa madiida gabadhu waxay diiday ma jirto waayahay buu yidhi wiilkaasoo xubinay u tegay gabadhii hadiyad buu u geeyey iyadii hadiyad bay ugu sii tala gashay halkii baa laysku waraystay waalidkii u yeedha laysku bartay halkii markii laysku bartay wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan maalintaa iyo saasa aan soo doono oo khaduubkaagu uu dhacaan rabaa waa isbuuc ka bacdi maalintii u tegay isbuuc ka bacdi weeye waayahay bay tiri halkiibuu muxuu ahaay yuu kasoo tegay halkii baa lagu soo kala tegay halkii markii lagu soo kala tegay isbuucii baa la gaadhay isbuucii markii la gaadhay gabadhii wuu doonay wuu soo khaduubtay wuxuu yidhi walaalay laba shardi baan wataa labada shardi aan wato waxay tahay awalan ani hooyaday iyo walaashay waxa aan rabaa guriga ay ku nool yihiin inaad kula noolaato waxay tiri taxtag amrak waxaan ka qaban ma jirto waa diyaar bay tiri wuxuu yidhi waxaa kaleetoon u baahanahay anigu lacag la burburiyo iyo wax muxuu ahaa lagu ciyaaro ma rabo laakiin xalfad maasha allah oo dhisan yaan kuu dhigayaa haye waayahay bay tiri waxba kama qabo adugu arooskii baa dhacay arooskii markii uu dhacay waayahay markii laysiri la heshiiyey arooskii baa dhacay arooskii markuu dhacay waa laysu galbiyey halkii bay ku wada noolaayeen arooskoodii gabadhii wiilka uu guursaday yaasira iyo maamadii wiilka dhashay iyo gabadhii la dhalatay say isu fahmeen ayadiyo gabadhii maasha allah si abay isu fahmeen ciyaartooda farxadooda sheekadooda nashaadkooda yaa baad u dhimanaysaa wuxuu yidhi wiilkii arooskanagii markuu toddoba bilood uu kasoo wareegay
wuxuu yidhi yaasmiin intaasaa gacanta u qabtay waxaan ku yidhi yaasmiine 7 bilood baa isqabnaa wax uurana maada ii yeelanin waxaan rabaa walaashay inaan isbitaal ka tagno oo bal xaaladeena soo ogaano labada dhinacba gacantiisii intay saa isaga dhufatay oo xanaaqday wiilkii wejiga u bedeshay waxay tiri maxaad ka wadaa ma 7 bilood bese baad muxuu ahaye leedahay waxbaad ku dhali lahayd seed ugu yeelan weyday sanad iyo baf waa inaa xagga dambe ka mara wixii ka dambeeya marka aan u raadin bas isagii gabadha wuu jeclaa naftiisu u bixinayay waa yahay buu yidhi halkii xabad ka geliyey uu raali geliyey halkii la isku raali geliyey halkii sheekadii ay muxuu ahaaye isbitaalka ay ku dhamaatay wuxuu sameeyey gabadhii 7 bilood ay isqabeen way fiicnayd reerkii way la dhaqmaysay aad bay u wanaagsanayd ma baxaynin 7 bilood ka bacdi waxay samaysay inay gabadhii bixitaan bilowdo yaasirow hooyaan rabaa inaan guriga kasoo hagaajiyo yaasir hooyaan dab usoo shidaya hooya iyo caajisan hooyaan kanaynaya hooyo kula inay uun hooyo ku baxdo hawl bayna wada tahay hooyo kuma baxaysa gabadhan waayahay unbuu dhahaa gabadha wanaagsanideeda haddana wadaadkeeda fasax inay ka qaadato mooyaane ma baxayso hooyaan u socdaa hooyaan guriga usoo hagaajinaya hooyaan dhar kasoo dhaqaya hooya caajisanoon dab u shidaya waayahay unbuu isagana dhaha shaqadiisu iska aadaa maalin maalmaha ka mida siday gabadhii siday ahayd oo u baxaysay dee waalid inay u socoto unbuu isagu mooday lilaahi buu iska ahaaye maalin maalmaha ka mida iyo maamadii soo wacday gabadha dhashay yaasir markay soo wacday waxay tiri yaasir salaamu calaykum see tahay hooyo ma fiicantahay oo fiicane see tahay salaan ka bacdi waxay tiri yaasir oo waxaan u baahanahay wax yaroo lacaga oo dayn ah inaa isiisaan rabaa wuxuu yidhi waayahay hooyo ama dayn ha ahaato ama deeq ha ahaatee waan ku siin buu yidhi markay intaa la isweydaarsaday waxay tiri ka waran yaasmiin xaaladeeda say tahay wuxuu yidhi way fiican tahay way barwaaqaysan tahay alxamdulilah wax naga dhiman ma jiro halkiiba taleefonkii maamadii jartay ilaahay inii siyaadiyey tiri halkii taleefonka ku jartay halkii taleefonka markay ku jartay wiilkii dib unbu hadalkii ugu soo laabtay yaasmiin ka warantii waa yaasmiin haddii ay iyada la joogto ana iiga warsanaysaa un wiilkii qalbigiisii intaama kusoo laalaabatay wuxuu sameeyey waa yahay sidii isagoo ah gurigiisu iskaga qolkiibuu iska galay wuxuu daydayay waxa oo adigu oo iqaamad miyay ahayd mise id kaar wax saaso iyo koobadiinada ka daydayay koobadiinadii isagoo baadhbaadhahaya wuxuu ku arkay kiniinkii dhalmada la iskaga celinayay buu arkay kiniinkii buu arkay wuu yaabay wuu argagaxay wuu anfariiray wuu yaabay gurigiisa ugu wareegaystay sidii muxuu ahaaye marwaxadii wuu yaabay isagoo dhagax faraha kula jiro gurigii kasoo baxay barandadiisa u wareegaya bayadii u timaaday maamadii waxay tiri yaasmiin ka waran gurigiina wuxuu ka arkay kiniin yamta u galay shib markii uu dhahay way u timaaday xabad kuu geliyey waa laysa salaamay sidii horeetu isaga dhigay isma dareensiin maamadii eraygaasay tiri muxuu ahaayey koobadiinkiina wuxuu ka helay kiniinkaas oo dhalmada la iskaga celinayay inan xaaskani weligeedba 7 biloodba waxay isticmaalaysay kiniin oo dhalmada iskaga celinayso isagiina wuxuu u hilowsan yahay oo ilaahayowda u hayaa waxay dhashay inuu arko welibana uu leeyahay wax u eg ayada uu ilaahay ka baryaya ilma iyada u eg inuu ilaahay uu ka siiyo halkii markay sidii ahayd ee sheekadii uu aamusay iyadii ay timaaday iyadoo iska dhigaysa wax weedeed ka timaaday yaasir shib buu yidhi aayar wuu soo dhaweeyey isma xumaynin habeenkii baa la wada seexday habeenkii markii la wada seexday subaxdii inta cajeerada dubaysay qureecda ay u sameynaysay wuxuu sameeyey wuxuu wacay nin oo saaxiibkii ah go-aan buu gaadhay wuxuu wacay nin saaxiibkii wuxuu wacay ninkii booskii ka korreeyey buu wacay wuxuu yidhi nin waxaan rabaa 7 beri oo fasaxaan rabaa wuxuu yidhi waa yahay 7 beri buu yuu fasaxay 7 beri markuu fasaxay ee fasaxa soo qaatay wuxuu sameeyey iyada wuxuu isaga dhigay inuu shaqadiisii aadayo subaxda qureecdii markay saysay wuu labistay warqadihiisii wixiisii buu qaatay gaadhigiisii buu ka haystay iyadii buu maca salaameeyey nin saaxiibkii u tagay oo cabaar xaafadda u jira markii u tagay wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad gaadhiga ii bedasho gaadhiga inaad ii bedashaan rabaa gaadhigayga inaad qaadato kaagana aan qaato gaadhigiisii buu soo qaatay guriga in cabaar u jirta gaadhigi markuu qaatay guriga in cabaar u jirtuu gaadhigii dhigtay muraayadihii buu dallacday halkaasuu gaadhigii ku dansaday
bay helay markii 3 saac iyo adigu 20 meelaha la joogo unbay aayar oo dhalatay bahal shuka ah iyo bahal yar oo khamaara intay isku soo taagtay iyo dhashareer oo kaliya laab soo labisatay soo baxday aayar markii ay soo labisatay soo baxday gaarigii uu ka haystay uu daba galay may wadada wax xirtaagneed wadada markii wax xirtaagneed taxi baa u yimid taxigii bay ku gooday gaarigii uu daba dhigtay akhyaaray warku waa dheer yahay qisadu aad bay u dheer tahay muxuu ahaaye qaybta kale waxaan iiga dhigayaa part 2 soo